Welcome back ladies and gentlemen. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. bin Rashid iyo markale video cusub kusoo dhawaada. Ma laga yaabaa inta badan kugu dhacda adigoo video soo duubay video ka soo noqdo mid real estate mid ha noqdo wedding ama mid event ha noqdo laakiin mid aad duubtay in door gudihi yani adigoo gudaha ku dhex jira sidoo kale ay habeen tahay ama bas maalin xilliga doonta ha noqotee kadib saad video-ga u duubiso markii daba ma aragtay in la dadkii yaray yani artificial light ka haye meesha duubisay ku dhex jiray oo moodayni flicker sameeyaan dhaqdhaqaaq kadibna video-ga gabigiisa slide video qurux badan ha noqdo oo aad dabeedna ka shakidas oranayso video-ga ma video sax ah noqon maayo moogta maadaama oo daylightkii si yar qurux badan cinematic slide u duubaad arkayso soo dhaqdhaqaaq iyo wax sameeynaya ma aragtay flicker sameeynaya ay sababta iska daaba waxa marka ciladaas oo kale aniga way la kulantay waxa laga yaabaa in adigana kula kulantay hadii aadan aragna balmaanta aad fahmi doontaa waxa soo yahay sababtoo ah cilada waxa keenay waxa weeye shutter speed kaaga ayaan qaacidada 180 degree rule ka aan marin oo aadan isticmaalin kaas oo ah mar walba frame rate ka aad ku duubayso ayaa double ka dhigaysaa shutter speed ka markaad hagaajinayso frame rate ka aad ku duubayso kamaradaada ayaa double ka aad ka dhigi doontaa oo laba ku dhufan doontaa kadib shutter speed kaaga kaas noqon doona marka waxa inta badan keenay waxa weeye shutter speed kaaga ayaa degdeg here we go again shutter speed kaas inta badan sababtoo ah kamaradu waxay ku shaqeysaa ama wax ku duubtaa ama wax ku sawirtaa waxa weeye saddexda shay ee shutter speed ki aperture ka iyo ISO ga marka shutter speed kaas keena in light kaagu uu flicker sameeyo sida video-ga nimka aad arkayso kaaga muuqda marka waxa sababay waxa weeyaan shutter speed kaaga haya marka xalku muxuu noqonayaa marka editing kala imaado halkan ku haya maanta waxa weeyaan no worries waxa aad isticmaali karaysaa software-ka aad wax ku dhiganaynayso gudihiisa ayaad ku hagaajin karaysaa oo aad kaga biin karaysaa video-gaaga ama light-ka yar ku dhex jira video-gaaga inuu flicker ka daayo soo horta inta video gelin waxaan ka codsanay marka koowaad hadii uu mowduucan ku cajabiyay inaad video-ga like saarto sidoo kale aad subscribe channel-ka tiraahdo oo aad ugu soo biirto haddana hore ugu soo biirin marka hadal badan uma baahnin sidan ayaa la sameeyaa ina marsha waayahay waxaad soo geli doontaa software-ka aad ku edit garaysato video-daada kolba ku doon noqon karaan waxaan isticmaalay Adobe Premiere Pro marka waan soo galay timeline-ka dabadina video-ga soo dhex dhiganaysaa kadib video-ga markaad timeline-ka soo dhex dhigato intaan u baahanahay ayaan soo qaadanayaa markaad video-ga soo dhex dhigato timeline-kaaga intaad u baahan tahay aad soo qaadato mar kaliya hadii play siino waxaad arkaysaa imka inuu flickering sameynayo sida ka muuqata marka waxa weeyaan yani waxaad arkaysaa video-gu inuu yahay mid unusable aan la isticmaali karin markaas aynu ku dhignaa daba si aynu rabno aan flickering-ka aynu ka reebno talaabada koowaad qaadsa waxa weeyaan in aad copy ka samaysato video-gaaga markaas aad ku samaysanaysaa alt baad qaban doontaa kadibna drag and up baad ku samaysanaysaa kor baad jiidi doontaa copy baad ka samaysmaya kii aad copy ka samaysatay ayaad select garan doontaa kadibna waxaad tegi doontaa effect controllers haddaan arkaynin halkaas ku jirta ama bas Windows ka soo heli kartaa haddaan haysan oo kale effect controllers ka marka effect controllers ka markaad tagto waxaad samayn doontaa inaad opacity-ga ka dhigto 50% istabta ku xigta waxa weeye marka video-ga qaybtii aad select garaysatay ee aad dabad 50% ka soo dhigtay oo ah kii copy-ga haya sare in aad hal frame dhanka midigta u celiso hal frame si dhanka midigta u celiso waxa weeye inaad alt qabato ayaad jihada taabsanaysaa shayga dhanka midig marka hal mar bin taabsanana one frame ayuu dhankaaga kacay marka waxaad samaysay markii hore inaad copy garaysato markaad copy garaysatay ee aad dabadna select garaysatay copy-gii effect controllers ka tagtay 50% baad ka dhigtay 50% markaad ka dhigtay opacity-ga ayaad kadibna dhanka iyo midigta hal frame ku cisay marka aynu bilay garano aan eegna balka soo noqday look at this marka imkan uu fiirso siduu yahay completely u istaagay flickering-kii light-ka ee fooshuma ay dhaqdhaqaaqay marka kan waxa weeyaan yani mid aan tutorial-kan aan u duubay laakiin waxa jirta project-yada qaar ma fiiriyada qaar caadi oo soo kale ku dhacdo marka saas oo kale hadii ku dhacdo waa inaad saas oo kale dawaysaa exactly sidaas ayaad u samayn kartaa una joojin kartaa in uu flickering sameeyo light-ka ku dhex jira video-gaagu alright video-gu maanta intaas inuu weeyaa saxaabta waxaan rajaynayaa video-gu inuu ka cajabay mar labaad waxaan ka codsanay video-ga dad ka heshay inaad like saarto sidoo kale aad subscribe tiraahdo sidoo kale comment-iga wala wadaagto bal in ciladaas ku qabsatay iyo sida kale loo xalin karo ee aad garanayso in labada way aan ahayn aad baan kaaga mahad celinayaa waqtigaaga qaaliga ah tan iyo markaa inta ku kulmi doono video-ga soo socda waa shakuur bin Rashid leh peace